imise saacadood ayaad habeenkii hurdaa soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxa laga qaadaa cudurro halis ah iyo dhibaatooyin kale oo aad u fara badan soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan cudurrada ku dhaca wadnaha cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu xaqiijiyay xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya cudurrada ku dhaca wadnaha iyo dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii cudurradaas waxaa ka mid ah sare u kac ku yimaada cadaadiska dhiigga faaliga iyo cudurka wadna qabadka dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii waxay saameeyaan awoodda jirku isaga xakameyn lahay sokorta dhiigga taasoo kordhinayso dhibaatooyinka dheefshiideed kiimikada sida sokorta sidoo kale waxay hoos u dhigtaa awoodda jirku isaga xakameyn lahay sokorta dhiigga sidoo kale soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan ilowsho badan ama xasuusta oo yaraato si gaar ah waxay u saameeyaan xasuusta muddada gaaban iyo tan fogba maxaa yeelay qofka marka uu jiifo maskaxdu waxay aad ugu shaqeysaa si ay u soo xasuusan lahayd macluumaadka cusub sidoo kale hurdo yarida ama soo jeedka badan habeenkii waxay dhibaateysaa maskaxda oo waxay keentaa dhibaatooyinka ku yimaada maskaxda sida asaasaqa iyo qalalka ku dhaca maskaxda soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay yareeyaan ama ay qalqalgeliyaan soo deynta dhicaamada jirka ama hormoonada waayo hurdadu waxay caawisaa hormoonada oo waxay ku keentaa in hormoonada si habboon ama si wanaagsan loo soo deeyo soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan dhibaatooyin ku yimaada maskaxda hurdada iyo caafimaadka dhimirka way isku xiran yihiin oo haddii qofka soo jeedkiisa uu badan yahay waxaa ku yimaada dhibaatooyin maskaxda xagga maskaxda sida walwalka stresska ama niyad jabka sidoo kale dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii waxay yareeyaan rabitaanka ama baahida galmada ayay yareeyaan maxaa yeelay waxaa yaraanayo hormoonka testosteronka loo yaqaan haddii hormoonkaas uu jirkaaga ku yiraahdo hormoonkaas ragga hadduu ku yiraahdo waxaa yaraanayo rabitaankooda ama baahida galmeed ayaa yaraan doona qodobka ugu dambeeyo oo ah qodobka aan kusoo gabagabayn doono hurdo yarida ama soo jeedka badan habeenkii waxay keenaan ama ay sababaan in difaaca jirka uu yaraado jirka awood badan ma u yeelanayo in uu isaga difaaco waxyaabaha halista ah jirka